Hello, this is Giirebuytechconsultit from Giirebuytechconsultit IT. Cashirkaan waa cashirkeeni noo socday oo ahaa learning how to use a window powershell ISE. Cashirkaan waa cashirkeeni koow iyo tobnaad. Marka ugu horeyso window aan ku boodayna halkaa arkaysaan search ayaan waxaan ku taab gareynayaa powershell. Haddaan dhaho power haddaan dhaho waxaa ii soo baxaya powershell ISE. Halkaasaan double click leeyahay. Markaan double click dhaho waxaa ii soo baxaya command-ka horta marka hore aan iska kelin gareynayaa si aan u garaacaya. Cashirkaan waa cashir koow iyo tobnaad. Marka waxaan rabaa in ay tuso koodadka haddaada xasuusan karin sida aan u heli lahayd meelaha koodadka window powershell oo ay ka heli lahayd. Marka waxaa ka mid ah get help baa ka mid ah slash aan leeyahay help aan leeyahay labada xaraf ugu horeeya haddaan garaaco asaa ii highlight-gareysmaayo. haddana waxaan leeyahay get process aan leeyahay saddex xaraf markaan garaaco wuu highlight-gareysmayaa saa wareegtaan. halkaasaan rabaa koodka hadda cashirkan uu ku saabsan waxaa waa get help get process an example slash aan leeyahay example aan taabanaya wuu ii highlight-gareysmayaa space aan leeyahay intan aan taabanaya. haddaba waa aragtaa inta example uu siinayo exaamano badan uu siinayaa. haddaan kor iyo hoos falaarta ugu wado exaamano badan uu siinayaa. Okay, haddana waxaan rabaa inaan kood kale aan tuso aan dhaho get detail inaan dhaho get help aan ka bilaabaya slash. haddana waxaan leeyahay get process markaan dhaho asaga haddana isagoo get process markaan dhaho waxaan leeyahay detail aan rabaa inaan dhaho slash aan leeyahay detail labada xaraf ugu horeeya haddaan garaaco asagaa siinayo. oo aragtaa waxaa ii soo baxaya details waa highlight-gareysan yahay. marka intan haddaan taabto asagana sidoo kale wuxuu i tusinayaa inta detail oo computerku ku jirto ama window powershell-ka isticmaaleyno. shortcut isticmaashid markaasay easy kaaga dhigayaan. hadda waxaan ku laabanayaa get help aan leeyahay wax kale ayaan tusinayaa window kalaan waa inaan galo. markaan garaaco space aan leeyahay haddana get process aan leeyahay. get process markaan taabto isagana sidoo kale space aan leeyahay slash aan leeyahay win waxaan rabaa window kale inuu tusaan rabaa. marka mar walba haddaad rabto inaad isticmaashid shortcut ama aad koodad badan isticmaashid waa inaad garaacdaa get help get process kabacdi koodka kale aad raadinaysid. halkaas waxaan rabaa inuu tuso show another window. marka waxaan leeyahay show markaan taabto saddexda xaraf show window aan rabaa waa ii highlight-gareysan yahay intan aan leeyahay. haddaba waa aragtaa mouskayga meeshan window oo kale uu tusinayo windowgan waa window kale oo powershell-ka ka mid ah. halkaas ayaan rabaa anoo isticmaalaya shortcut waxaan ku taab gareynayaa computer name. inta aan dhamaystirin asagaa siinayo computer aan leeyahay. inta computer ku oo nameka ama name aan leeyahay computer markaan dhaho name aan leeyahay anoo namekaan dhamayn waa aragtaa computer nameka uu siinayaa. haddaba mid kale waxaan rabaa inaan taabgareeyo ID inaan dhaho haddaan taabto ID waasna sidoo kale wuu highlight-gareysmayaa. cashir gaaban weeyaan waana cashirkii koow iyo tobnaad. hadduu cashirkan ku anfaco ama cashirkan aad ka heshid oo aad channelkan ku cusub tahay subscribe-ka noo saar like-ka taabo share garee comment-na ka bixi.